sanado badan oo xulka qaranka Soomaaliya uu ka qayb galay tartanna xiisa gooniya lahaa ayuu kala soo kulmay guuldarrooyin fara badan. Haddaba 20kii sano ee la soo dhaafay xulka qaranka Soomaaliya halkee ayuu kaga jiray kala sarreynta FIFA? Ma kor u kac ayuu sameeyay mise hoos u dhac? 8 bishii Abriil 2009 ayuu xulka qaranka Soomaaliya ka soo muuqday kaalinta 167 ee kala sarreynta FIFA. waana kaalintii ugu fiicneed ee Soomaaliya ay ka soo muuqato 20kii sano ee la soo dhaafay. isla sanadkaas xulka Soomaaliya ayaa dheeray kulamadii saaxiibtinimo ee ugu badnaa isaga oo la ciyaaray wadannada kala ah Eritrea, Zimbabwe, Uganda, Rwanda, Tanzania iyo Zanzibar. xulka qaranka Soomaaliya Ocean Stars ayaa wadi sar u kac fiican oo dhanka kubadda cagta ah, balse sanado badan kadib xulka Soomaaliya ayaa waxa ku yimid dib u dhac weyn markii ay yaraadeen kulamadii saaxiibtinimo ee waa ciyaari jiray, taasi oo sabab ay u noqotay in uu dib ugu soo laabtay kaalmihii ugu hooseeyay ee kala sarreynta FIFA, isaga oo bilowgii bishii July 2018 ka soo muuqday kaalintii ugu liidatay ee uu ka galo kala sarreynta FIFA, taasoo ah kaalinta 207. waxaana xusid mudan in 11 kulan oo isreebka World Cup-ka adduunka ah oo uu ciyaaray xulka Soomaaliya uu 9 ka mid ah guuldarro kala kulmay. sidoo kale waxa uu ciyaaray 20 kulan oo tartanka Sakafa Championship ah, balse waxa uu kala kulmay 17 guuldarrooyin ah. sidoo kale waxa uu 6 jeer ka qayb galay tartanka African Nations Championship, balse dhammaan kulamadaasi waxa uu kala soo kulmay guuldarrooyin. haddaba maxay tahay sababta keentay hoos u dhacan aadka u weyn iyada oo uu jiro horumar ka wanaagsan kii hore? duruufo badan oo jiray xilliyadii hore aysan hadda jirin oo ay meesha ka baxeen. nala wadaag fikirkaaga.